وكما محمود حاشي عبدي محمود حاشي عبدي وحاو كل شيء مقالة عينة بحرونتا قبل كسرار سنة يكون سقال بقول لبي اللحدنكي محمود حاشي عبدي وحاو تلادة دالك كسو بلابي يكون سقال بقول كوبي سقاشنكي إسوغو نقضي مايركي دقمدا برعو زيدو كلا محمود حاشي عبدي سنة يكون سقال بقول سقاشن يصدح دي إلا لبدي يكون يافرتي وحاوها حبين كترسان قولها وكيلة السومالي لان محمود حاشي عبدي وحاو دالك كردوفي سنة دي لبدي يكون يافرتي waxaanu sii joostay dalkaasi Ingiriiska halkaas oo Maxamuud Xaashi Cabdi aqoontiisa waxbarasho kor ugu sii qaaday sanadii 2009 ayuu Maxamuud Xaashi Cabdi dalka dib ugu soo laabtay isagoo ka qayb qaatay guushii uu gaaray xisbiga talada dalka ee kulmiye sanadii 2010 xisbiga talada dalka ee kulmiye ayaa Maxamuud Xaashi Cabdi nafya maalba u huray sidii uu talada dalka u qaban lahaa xilligaasi oo xisbiga kulmiye ka ahaa gudoomiye أنا مشرح مدحوينه أحمد محمد محمود سيلانيو إزاقو حلقاسي محمود حاشي عبدي وكمدها مسؤولين تحسبك كلمية محمود حاشي عبدي وحاو قاد داريقاد قابن باو كوري سيديو طلد الدلك وقبل لها حسبك وكمدها يا كلمية وهو رعد كسيو وانتي يا كلمية وكعا doorasho kadib sanadii 2017 ayaa xisbiga talada dalka ee kulmiye uu istaagay doorashadiisii labaad ee uu ku hanan lahaa hogaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xilligaasi oo musharaxa madaxweyne uu ahaa madaxweynaha haatan talada dalka ee kulmiye doorashadaasi waxa uu tartamay saddex xisbi qaran ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland waa xisbiga kulmiye wadani iyo wicid doorasho xor iyo xalaal oo sanadii 2017 ka qabsantay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku guuleystay xisbiga talada dalka ee kulmiye guusha uu ku naaloonayo xisbiga talada dalka ee kulmiye waxa hormuud ka ahaa Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah rugcada siyaasadeed in badan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo dhaamiyay 13 Noofambar ayaa cid waliba wixii ay heshay soo bixi doontaa kulmiye waa xisbi weyn oo waaya araga wuxuu dheer yahay xisbiyada la tartamaya 5 hal ayuu dheer yahay هذا الأصول هالجنين هذا القضية هجنيو هذا الأصول هالجنين هذا القضية هجنيو أول أصول هالتين هيا أنا لا صدقين ميان هالشباب الليل محمود حاشي عبدي وسياسيين توقف فعوين جمهورية الصوماليلاند حكومتي وقروادانك كاها أحمد محمد محمود سيلانيو وحاو ترابا لباتشار كسو قبتاي جاقدا وزير نبو سياسي محمود حاشي أراكتيدي سوكواد معها إنو وزيرون سي أهادو بلسي حدا وحاو تفاحيتاي سيدي ودالك جمهورية الصوماليلاند وقمان لها هوغان كيسا وغانا سمتبعين لها مرحلة دائمك كجرتو تسياسة دهان دقال أهان بلسي وحا اسويدين مدن محمود حاشي عبدي مكاسمة تبديحين دونا دالك جمهورية الصوماليلاند مرحلة دو كجرو منكا اسببالك دالكو وحاو كجرا قعان تادا